waxaad samaysaa tijaabadan. Soo qaado qalin iyo warqad ama ku qor telefoonkaaga saddex shay oo aad ku fakarayso iminka ama ha ku kaydsanaato maskaxdaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Xisaan Media. Maanta waxaan ka hadlaynaa sidaad rabadaantaada uga dhigi lahayd mid ka duwan rabadaanadii hore la soo dhaafay. Waxaan filayaa inaad qortay saddexdii qodob aan hore kuu soo sheegnay inaad qortid. Waxaad kala qortaa saddex shay haddaad dhiman lahayd aad ka murugan lahayd. Bisha Ramadaan waa waqti kasta oo aad hagaajin lahayd wax kasta oo kaa qaldamay. Maanta waxaan isbaraarujinaynaa habka ugu habboon oo aad uga faa'iidaysan lahayd bishaada Ramadaan ama aad uga dhigi lahayd mid miro dhasho bishaada Ramadaan. Qodobadan soo socda ku dadaal bal inaad xoogga saartid. Kow, bisha Ramadaan waa bil cibaado. Uguma jeedo shanta salaadood oo kaliya inuu qofku tukado. Rasuulkeeni Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisii waxay ku dadaali jireen bisha Ramadaan inay sameeyaan acmaal aad u fara badan. Haddaad isku daydid inaad wax kasta qabatid oo aan Allah kaa raali ahayn, wax kasta aad qabato waa miro dhalays. Ku dadaal inaanay dhinaca cibaadadu kaa nusqaamin oo mar kasta iska geejisid ama aad ku dadaasho inaad mar kasta ilaalisid dhinaca cibaadada. Ha kaga mashquulin aakhiradaada adduunyo dhammaanaysa. Ku dadaal inaad awoodda saartid aakhiradaada. Uguma jeedo inaad dayacdid adduunyadaada ee labadaba ku dadaal inaad awoodda saartid adduunyadaada iyo aakhiradaada. Dhinac kaliya ha u goyn. Adduunyadaadan ha u goyn, aakhiradaana ha u goyn. ee labadaba ku dadaal inaad awoodda saartid adoo awoodda sii saaraya aakhiradaadana. Dadka qaar markay filmada daawanayaan ama filmadu ay soo galayaan waxay tagaan TV-ga waqtiga soo galayo filmadu. Laakiin marka salaada loo eedaamo masaajida ma tagaan ama waqtigii salaada lagu talagalay ma tukadaan. Ayna iska ilaalino dib u dhigista acmaasha. Haddii kale markasta aynu leenahay 10ka dambe 5ta dambe ayaan qaban doona ay bisha aynu ku dhaafi doontaa. Qodobka labaad, ilaali awooddaada iyo focuskaaga. Dhibaatada ugu weyn ma aha waqtiga ee waa kolba saad u isticmaashid awooddaadiga kugu jirta. Waayo Ramadaantu kolba wuxuu bedelayaa awooddaada jirka ku jirta oo kolba way sii yaraanaysaa. Saa awgeed muhiimaddu waxa weeyaan saad u maareyn lahayd ama uga faa'iidaysan lahayd intaad firfircoon tahay ama intuu energy-gaagu badan yahay. Waa inaad samaysataa jalwad. Waa inaad garataana waqtiyada uu badan yahay energy-gaagu si aad uga faa'iidaysan lahayd. Qodobka saddexaad, samee wax cusub. Ramadaantu waa waqti aad bedeli karto wax far badan aanad samayn karto wax cusub. Sida qof kasta inaga naga mid ah quraanka waa akhriyaa. Laakiin bisha Ramadaan waxaad samayn kartaa wax cusub oo ah inaad baratid quraanka macnihiisa, tafsiirkiisa inaad bilowdid. Intaad akhrin lahayd oo kaliya xarafyada Carabiga waxaad ku daydaa bal inaad fahamtid macnaha uu Alle uga jeedo quraanka uu soo dejiyay. Waxaad kala samaysataa gurigaaga meel ka mid ah inaad ka dhigtid masaajid. Iminka oo loogu talinayo inuu qof kasta gurigiisa ku tukado si la iskaga yareeyo isku imaanshaha farax badan leh. Waxaana faa'iido ku yahay haddaad samaysatid gurigaaga meel ka mid ah inaad ka dhigtid masaajid. Adiga waxa kugu dayanaya carruurtaadii. Waxaad u noqonaysaa ku dayasho wanaagsan. Waxaad kala samaysaa xifdi quraanka wax ka mid ah sida habeenkii aad ku tukatid taraawiixda ama salaatu leysha. Mar kasta haddaad ku celcelisid suuraddii aad bari hore xifdiday waxaa laga yaabaa salaada macaankeeda inaad dareemin. Laakiin haddaad mar kasta badbadashid quraanka aad kolba intaad xifdiday aad ku tukatid waxaa laga yaabaa kolba iimaankaagu inuu sii kordho. Waxa kale isku daydaa inaad kaga faa'iidaysatid bishan inaad akhridid kutub kuu siyaadinaya cilmi. Waayo wax akhrintu waxay siyaadinaysaa fikirkaaga. Haddaanad akhrin karayn fadlan daawo waxyaabo adiga ku faa'iida. Haddaad haysid wax fikira saan bisha Ramadaan u soo gudbino fadlan hoosta nagu reeb. Qodobka afraad, ku bedel musalsalada wax kororsi. Waxaa laga yaabaa mid kasta inaga naga mid ah inuu daawaday filmada ugu yaraan 1 saac. Haddii halkaas saac lagu dhufto 30 maalmood waa 30 saacadood. Bal waxaad qiyaastaa 30 saacadood intaad faa'iidi lahayd bil dhan.
waxaad noqon lahayd aqoon-yahan. Qodobka shanaad, xidh baraha bulshada. Rabadaantu waa bisha ku habboon inaad xidhid baraha bulshada. Waxaa laga yaabaa qofkeena ugu yari inuu maalintii isticmaalo 4 saacadood baraha bulshada. Haddaad xidhid 4 saacadood waxay kuu faa'iideynayaan inaad wax kale ku bedelshid. Waxaaba dhici karta inaad ka daawato waxyaabo xunxun oo soonkeena inaga fasahadin ama inaga burin kara. Haddaad xidhidna waxaad heli doontaa waqti farax badan leh. aad baad mahadsantihiin daawatay. fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad like iyo share saartid.